munaasabadan oo ahayd mid xil wareejin ah ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana xilalka kala wareegayay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid iyo waliba taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Xasan Ismaaciil. Wareynta munaasabada ayaa waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Ibraahim Isxaaq Yarow kaas oo sheegay in haddii mar xil lagu dhiibo lagana qaado taasi macnaheedu aysan ahayn in aadan waxba qaban basla ay tahay dastuurka dawliga ah ee caadiyan wasiir ku-xigeenka ayaa ka dalbaday taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed in uu la yimaado isbedel muuqda maadaama nabadgelyada dalka hadda ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. sida hadayto ay idin sheegeen muxuu ahay xil wareejinta waa wax muxuu ahaa meerta ah, xilku waa wax muxuu ahay qofka yimaada kana taga waayo, laakiin hay'adda iyo iyo astaanta qarannimo sideeda weey sideeda u jirtaa, hay'adii sideeda u dhisan tahay, booliska Soomaaliyeed sideeda u jiraa, qofku waa yimaada xilka waana ka tagaa. sida hadda waxaana la jooga taliyayaashii hore, taliye Ahmed Jaamac iyo taliye Cali Madoobe ayaana la jooga oo booliska soo qabtay, taliyayaal kalena hadda magacyadooda waa la idin sheegayay. qof walba wuxuu qabto iyo wuxuu ku soo kordhiyo taariikhda ayaa xusaysa. Saacid wuxuu ku soo shaqeeyay oo hadda xilka wareejinaya runtii duruufo aad iyo aad u adag buu ku soo toosay, xilli adag buu soo shaqeeyay, wax la taaban karo hadda muuqda oo aan sheegi karnana waa qabtay. intuu joogay booliisku waa qabteen, waxna waa dhiman yihiin in la wada shaqeeyo sidii taliyayaashii hore ay ula shaqeynayeen taliyaha hadda xilka bedelaya ay ula shaqeynayeen ayaan ka rajaynaynaa taliye Saacid iyo muxuu ahaa taliyayaashii horeba inay ula shaqeeyaan taliyaha cusub, ay ula shaqeeyaan oo u garab galaan asagana uu talada u weydiiyo oo ka qayb geliyo. ugu dambeyn taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Saacid ayaa waxa uu ka hadlay munaasabada, waxa uu xusay in uu soo dhaweynayo taliyaha booskiisa lagu bedelay isagoo ballan qaaday in uu wada shaqeyn buuxda la sameyn doono. bismillaah waxaan rabaa inaan ku daro konseyada waxay qoraal ku wada tahay dhammaanteed hogaamada oo ah dhammaantood 15 hogaan iyo qaybta guud ee gobolka Banaadir, barnaamijka booliska, daraawiishta, waaxda miir baarista, akadeemiyada, ururka taliska iyo horinta Xasan Geedi ee ammaanka baarlamaanka gaar ugu xilsaaran. marka feelasho inuu qona dhawaan ay ahayd markii xilka taliyaha ciidanka booliska laga qaaday General Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid isla markaana loo magacaabay Maxamed Xasan Ismaaciil, iyadoona bulshadu ay ga fadhiyaan waxqabadka uu la imaan doono iyo isbedelada uu ku sameyn doono amniga dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.